dalkiyo dadkaygow guntadoo ka kaca gacmaha isqabsada waad guulaysan doontaane guntadoo ka kaca gacmaha isqabsada isku raxiim marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhammaan ummadda islaamka ah gaar ahaan bahweynta beesha Gabooye ha joogaan meel kasta maanta muuqaalka waxay u kalifay waxaan doonayaa inaan waxoogaa yar ka iftiimiyo xaaladda maanta ay marayaan beesha Gabooye marka ugu horeysa waxa weeye horta qof kasta uu ogsoon yahay xaaladdu meesha ay marayso qofka waddanka jooga iyo qofka dibadda jooga maanta macnaheedu waxa weeye horta qofka bini'aadamka wuxuu hadii jeer ku xisaabtamaa in uu macnaheedu mustaqbal yeesho caruurtiisana ay ku noolaadaan sharaf iyo sumcad horta maanta inagu inta ma haysano sumcad ma haysano sharaf ma haysano ugu guriga waxa weeye hoggaanku aabo hadduu xumaado waxa weeye reerkiisa hadii uu difaaci waayo cid kale oo difaacaysa ma jirto inaga marka hoggaankeenii sare maxaa keenay inay iyagu dhexdooda is eegaan oo ay khilaaf macnaheedu hadii jeer iyagu dhexdooda iska shaqeeyaan war qofka bini'aadamka ah waxa loo baahay hadii jeer inuu ka fikiro mustaqbalka caruurtiisa war maanta miyuu jiraa qof kaliya oo ka fikiraya mustaqbalka beesha Gabooye ma jiro nin kasta wuxuu ka fikirayaa mustaqbalka beesha Muuse beesha Madhibaan beesha Yibir beesha Anaas beesha Tumaal war waxa loo baahnaa war si wada jir ah ayaa loo baahay in loo wajaho dhibaatooyinka meesha taagan maanta waxaan nahay shanteenaasi waxaan nahay bidix midig baan nahay ama qaar hawiya ahaadaan ama qaara ahaadaan dir ahaadaan laakiinse maanta qofka labada qof ee walaalaha ah ee maanta isku naxaya ee kala guursaday ee abti iyo ilmaadeer iyo awba isku ah maanta waa inaga hadda waxaan u sheegayaa hoggaanka sare ee beesha cid kasta ahaadaan war waxaan leeyahay maanta xukuumadda Soomaaliland waxaad ku leediin abeeraatay ma jirto sumcad kuma leediin sharaf kuma leediin xil wanaagsan kuma leediin war imika xaaladda maanta ay waddanku maraya waxa weeye mar haddii uu is-caasilay la taliyay madaxweynaha oo markii hore badda jigadaas ay jiga khalad ahayd waxa weeye la taliyaa beeraha la hayb sooco oo magac gaar ah loo bixiyay imika waxaan leeyahay waxaad haystaan waa fursad dahabi ah chance ba haystaan chance-kaas waxa weeye in aad raadisaan xaqiina idinkoo wada jir ah imika waxaan leeyahay waxaad haystaan waa fursad dahabi ah chance ba haystaan chance-kaas waxa weeye in aad raadisaan xaqiina idinkoo wada jir ah laba baana inuu qofo meel ka hadlo uu qofna xukuumadda amaano qaarna ay sarraacaan waxa loo baahay si wada jir ah ila meesha loo wada socdaa waxa weeye wadanaha beesheen ummadeena weeyaan war ummadaha kale xaqooga say u soo dhacsadaan dhiig bay u galaan oo dhiig bay u daadiyaan oo naf iyo maal bay u huraan war adigu maanta naf iyo maal maanta laga baahnay waxa weeye waxa samaysaa codkaaga maanta u hur waxa weeye maanta waxa weeye afkaaga fur waxa weeye macnaheedu xaqa wayna maanta aad ku soo dhacstaa afkaaga laakiinse haddii aad afkaaga kala xishooto dee qoriye waxaan ku leeyahay iyo dhiigna waxaan ku leeyahay waxaan hubaa inaadan macni u huri karin marka waxaan leeyahay dhammaan hoggaanka sare ee beesha boqorka beesha suldaama dhammaantood waxaan leeyahay gacan istaageera waxaan ku leeyahay hadiyo jeer waxa weeye noqda kuwii isku mowqif ahaada position kastoo soo baxa ama wasiir ahaado si wada jir ah uga wajaha yaan loo eegi waa Madhibaan iyo Muuse waxaad eegtaan waxa weeye qofkan ma yahay qof buuxin kara ama ka soo bixi kara ama umadiisa baahiyaha dhibaatada haysa ka saari kara intaas ay insha Allah ku soo gabagabeynaya waxaan leeyahay ilaahay insha Allah hayda xafido qurba joogtana waxaan leeyahay qurba joogta waxa weeye maanta hoggaankeenaas waa ummad dhibaataysan taageero ma haystaan dhaqaale ma haystaan war qurba joogow isku yimaado waxa sameysaan ila dhaqaale ama account sameeysta dhaqaalahaas oo lagu taageero markasta oo ay hoggaanku ay hawlgalayaan si marka hoggaankaasi ay u ogaadaan in la garab taagay laakiinse qofkii markuu isagoo xaalkii caruurtiisa iyo ehelkiisa la dhibaataysan miyuu ka soo bixi karayaa tii kale waa maya marka idinku waxa sameysaan had iyo jeer waxa isku dayda inaad taageertaan oo kor u soo qaadaan hoggaankiina sare hoggaanka hadii la taageero isaguna xaq u soo dhicinaya marka insha Allah la taageero